magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka ay ku soo barakaceen dadkii abaaruhu saameeyeen kadib markii xoolihii ay ka dhamaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo uu wehelinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa booqday xeryaha ay ku jiraan dadkii ka soo barakacay deegaanada miyiga isla markaana halkaas ku waayeen xoolihii ay dhaqan jireen abaarahan isdaba jooga ah awgood oo ka jira guud ahaanba gudaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale dadka xeryaha ku jira ee ka dhageystay duruuftooda nololeed ay ku sugan yihiin isagoo sheegay in wax laga qaban doono oo ay xukuumaddu soo gaarsiin doonto adeegyo degdeg ah waxaanu ka dhiganay waxa hortaminta u leh dawladdan inay noqoto in cadawga la iska xoreeyo isla markaana laga jawaabo abaaraha ba'an ee dalkeena haysta waxaan ka hadalay meel walba waxaan sameynay institutionkii ka shaqayn lahaa oo maareynta musiibooyinka oo aan ku faraxsanahay in guddoomiyaheedii halkan fadhiyo idinlana sii joogi doono maalmo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku daynay inaan waxa ugu badan ee aan kari karno kaga jawaabno arrinta hadda ka taagan halkan buulo burdo oo ayadana aad ogtihiin dhinac walba muddo dheer ka xirnayd waxaan u dirnay raashin halkanna waan usoo dirnay haddana guddoomiyihii uu sii joogi doonaa kuurgal iyo sii wadid gargaarkaas noloshoodu waxay ku tiirsaneed labo xoolo dhaqato iyo beeraley xoololeydii xoolahoodii waa baaba'een waxay qarka u saaran yihiin macluul waana dhammaadeen xoolahoodii sababtuna sanadkii iyo 2 sano lasoo dhaafaa iska daba baaday waxay u baahan yihiin gargaar degdeg waxaa soo helay qaybta beeraha noloshooda ku iyagana ay ku tiirsaneedeen beeraleydu ubigiyaaba guray maxay ku tacbadaan ayaguna xoolo dhama haysan beeray maaragtay tacba jireen ubigiyaa guray iyaguna waxay taagan yihiin macluul